wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug mudane masagawaa oo dabcan wasiirka sida la sheegay soo gali doono waxaan kaloo rabaa inaan halkan salaan uga diro ama ka salaamo mas'uuliyiinta kala duwan gudoomiyaha gobolka taliya-xigeenka booliska duqa degmada iyo dhammaan qaybaha kale oo halkan fadhiya waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu hambaliyeeyo inuu rajeeyo guul musharaxiinta halkan u taagan inay xilka gudoomiyaha ururka qabtaan haddii wax yar aan ka xuso arrintan juudiga loo soo maray ilaa 24 Febraayo 2019 waqaabada hawshan saxaafaddu runtii gobolka mudug si aan kala go'olay ay u soo wadeen waxaan rabaa markii inaan halkan uga mahad celiyo anoo ku hadlaya wakiilnimada wasaaradda warfaafinta Soomaaliya dowlad goboleedka galmudug saxaafadeeda iyo hawleeda gudoomiyihii hore oo runtii liman cajiib oo guddigan magacaabay 3 Maarso 2019 iyo guddiga qabanqaabada oo muddo soo shaqeynayay oo runtii ku guuleysay ilaa 50 iyo kow saxafi inay ka buuxiyaan shuruudihii xubinimada sida arkaysaan ilaahay mahadiis weey arrintaas sida ay gudoomiyaha gobolka iyo duquba sheegeen waa isdoorasho runtii xora oo runtii ay ku xulanayaan arrintooda waxaan rabaa in runtii aan halkan uga soo mahad celiyo saxaafadda ka timid meelaha kala duwan sida degmooyinka gobolka galgaduud oo magaca saxaafadda uu meeyo iyo saxaafadda kale oo ayadana laga casuumay dhinaca runtii saxaafadda kale marka waxaan leeyahay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dabcan sida hore loo sheegay wasiirka arrimaha maaliyadda mudane Saciid Shirwac ayaa xafladda kulli furtaan qaybta loo gamakeeni doono balse markaan wasiirka warfaafinta galmudug Masagawaa oo arrintan nagala hadlay wasiirkana soo wakiishay hadalkiisa aan dhageysanay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اما بعد hadda markii ugu horeysa waxaan rabaa inaan fasaxa meesha tan inaan ka hadlo aan ka bilaabo aniga ma ihi wasiirka warfaafinta wasiirka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha galmudug ahay laakiin saaxiibkay iyo anoo jecel inaan garab istaago dhalinyarada saxafiyiinta ah iyo wasiirkoo ila jeclaaday baa meesha tan inaan hadalla ka jeediyo ay ku suuro gashay markii ugu horeysa marka bal wasiirka aan dhageysano si uu igu ogolaado meeshan hadalla inaan ka jeediyo Soomaalida waxay tiraa fuleexantiisa ma mooga wax kasta doorasho maahan laakiin anagu waxaan islayn haddaan nahay galmudug yaa lagu xadgudbin nidaamka dadka la doorto iyo dadka la magacaabo wareegtada lagu magacaabo waa kala naqan hadda waad noo sheegi doontaa wixii doorasho ahaayo anagu aan dekreeto ku magacownay waana garabsan doonaa hadday jirto laakiin horta hor iyo horaanba wasiirka warfaafinta Mr. Masagawaa hanoo Masagawaa wasiir la hadal dadka وما سنتهاي آدي هذا ما سنتها وسير
waana kuwa markii gunaanadkan waa ku soo wici doonaa haddii alla yidhaahdo intaas dabadeed war waxaa dhameeyey maayarka xor waxaa tahay qofka kale xuduuddada intaa loo tegay haddii ay jirto wax aan ku xadgudubnay oo galmudug aan isleeyihiin waxbay wax aad dooran lahaydeen ay dekaleeto ku magacaabeen hadhow markii ay arrintu noo dhawaataan isu sheegi doonaa waana ka wada hadli doonaa dhowr gooraan ugu soo celiyay waa maqlaya intaan meesha fadhiyey hadda looma baahna warka inaan ku dheeraano ragaa wuxuu boodboodaya dad ogtiin haddii kale xiliyaraysi ma leh saacaddaa ragaa wuxuu boodboodaya keeni doontaa waa maya aniga waxaan rabaa arrinta aan rabo inaan ka hadlaa waxay tahay anigu waxaan isku haystaa saxaafadda saaxiibkeeda inaan ahaa weligeena saasa waa jeclaan jira xataa inaan ka iimasa suurad gelin waxaan rabaa inta ay suuragal tahay galmudug madaxdii berritaa tihiin aniguna kuwa maanta joogaan nahay in loo hiiliyo galmudug in loo hiiliyo codkiinna iyo qalinkiinna inaad ugu hiilisaan gardarooyinka inaad ka difaacdaan dulmiga faraha badan oo ka jira meelaha qaarkood inaad ka difaacdaan inaad qalinkiinna iyo codkiinna iyo ilaahay idin aqoontiinna ugu hiilisaan taageertaan madaxda galmudug waxaa jira sir ayaa meel kastaa siray leedahay dalku siruu leeyahay annagu qayb ka mid ahaan nahay siraan leenahay waxa intii aan laga hadlin oo aan bannaanka la gelin layska weydiiyo wixii markaas loo garto inay yihiin wax bannaanka la dhigaayo lasoo dhigo wax kasta laakiin haddii guryaha cidaha laga hadlo waa dhibaato adduunyo waxyaalo badanaa jira oo la rabo in laga fiirsado oo fitnadu waa hurudaaha liyo sideedaba nacala allaahu man ayqadaha iyo kula sahlanaa waa lacalada waxa weeye waa naxariista ilaahay ka dheereeyo qofka hurdada ka kicisa hadal yar oo aad sheegtay oo aad adigu muraad ka lahayn baa waxaa dhici karta in boqolaal qof ku dhimato taasina waa arrin dhibkeeda leh sidaan idiin sheegay ma rabo inaan ku dheeraado warkan rag badanaa halkaa fadhiya oo xaalkooda ilaahay og yahay hadhowaan warka ku soo noqon doonaa waxaan rajaynayaa dad isyaqaanaad tihiin qofka idin wadi kara adinkaa yaqaan aniga waa ogtihiin shalaad ii yeerteen hal saxaafi oo aan wacay xalay oo hebel doorayaa sheegi karaa ma jirto waan ismay kari laakiin maya waxaan rabaa ninka adduunku aad garataan inaad doorataan deedna aan la shaqayno annaga nuxurkanu intaas weeye aad iyo aad aad u mahadsantihiin aad iyo aad idin salaamayaa wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu